kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dalkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah maxaa ka jira in muwaadiniin u dhashay dalka Nigeria ay aadayaan dagaalka ka soconaya dalka Ukraine faahfaahin umuurtaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal warka waxaa ku jira dad sugayay 6 saacadood in la daadgureeyo gudaha dalka Ukraine warbixinadii ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan waan idiin haynaa sidoo kale daawadayaal qodobadan warkii kugu heyna waxaa qayb ka ah Ruushka oo dagaalyahano Suuriyaan ah geenaya magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine Ruushka dhankiisana waxa uu diiday inuu ka qayb galo dhageysiga maxkamadda caalamiga ah ee ICJ qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay waxaa la ogaanayaa waxyaabaha ka jiray muwaadiniin u dhashay dalka Nigeria ay aadayaan dagaalka ka soconaya dalka Ukraine dowladda Nigeria ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in muwaadiniinteeda la diiwaan geliyo si ay ugu dagaalamaan dowladda Ukraine halkaas oo ciidamada Ruushka ay duqeymo xoogan ay ka wadaan magaalooyinka waaweyn ee dhaca dalkaasi arrintan ayaa daba socota warbixin sheegaya in la qorayo tabarucayaal reer Nigeria ah si ay markaasi uga soo dagaalamaan gudaha dalkaasi Ukraine wasaaradda arrimaha dibadda dalka Nigeria ayaa sheegtay in safaaradda Ukraine ee dalkaasi ay beenisay inay wax door ahi ay ku leedahay howsha lagu eedeeyay balse safaaradda ayaa xaqiijisay in tiro ka mid ah dadka u dhashay dalka Nigeria ay la soo xiriireen taasi oo muujinaysa inay rabaan inay ku biiraan dagaalka ka soconaya dalka Ukraine sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda safaaradda ayaa sidoo kale iska fogeysay sheegashada ah in ay ka codsanayso $1,000 qof kasta oo Nigeria u dhashay oo doonaya inuu Ukraine aado si loo siiyo tikid diyaaradeed iyo waliba dalku galka wadankaasi waxa ay ku soo beegantay maalmo kadib markii Senegal ay ka digtay iska wax u qabso dad isku qoraya inay la dagaalamaan Ruushka dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine waxaana dhawaanahan soo baxay warar sheegaya in dad badan oo u dhashay dalka Nigeria ay doonayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ka soconaya dalkaasi Ukraine oo ciidamada Ruushka ay ka geysanayaan waxaana warar soo baxay ay sheegayeen in dad fara badan ay isqoreen kuwaasi oo doonaya marka la fiiriyo dagaalkaas inay qayb ka noqdaan waxaana dowladda Ukraine ay ballan qaaday in mushaaraad u dhaxeeya ilaa 3,000 ilaa 7,000 oo dollarka Mareykanka ahi bil waliba la siin doono dadka mutadawiciinta ah ee dalalka kala duwan ka imaanaya kuwaas oo doonaya inay garab istaagaan ciidamada Ukraine dagaalka ay kula jiraan kuwa Ruushka waxaana sidoo kale ay sheegeen haddii dagaaladaasi ay ku guuleystaan in dadkaasi loo ballan qaadayo dhalashada dalka Ukraine iyo sidoo kale goobo ay ka degaan wadankaasi dhinaca kalena dad sugayay 6 saacadood in la daadgureeyo gudaha dalka Ukraine ayaa la soo warinaya goobta laga raaco tareenada ee magaalada lagu magacaabo Dnipro dad ayaa barafka iyo waliba qabowga ku sugayay 6 saacadood si loogu daadgureeyo tareen u baxa galbeedka dad badan ayaa goobtaasi yimid 2 saac oo subaxnimo xilliga Ukraine waxaa ka mid ah qoysas ka yimid magaalada oo ka cabsaday in dagaalku qabsado waxaa jira reero badan oo feel ugu jiray markaasi inay tareenka ay raacaan laakiin boolis ayaa ka saarayay ragga gaaray da'da dagaalka iyagoo u sheegayay inay ka qayb noqdaan dagaalka ay kula jiraan kuwa Ruushka waalidiinta ayaa gabdhahooda dhowr iyo 10 jirada ahi saarayay tareenka iyaga oo markaasi aan ogeyn halka ay tagi doonaan xaalad hubanti la'aan ayaa ilaa haatan ka jirta dalka Ukraine iyadoona duqeymaha ay xad dhaaf yihiin kuwaasi oo ku soconaya dalkaasi waxaana dowladda Ruushka ay sheegtay in dalkaasi aysan ka soo bixi doonin ilaa hadafka ay ka leedahay ay ka gaarto madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu dhowr jeer iska dhaga tiray baaqyada caalamiga ah ee loo jeedinayo ee ku aadan in arrinta Ukraine uu ku dhameeyo xal diblomaasiyadeed iyadoona xukuumadda Moscow ay arrimahaas oo idil iska dafirayso xilligan kaliya ay u caddahay inay xal dagaal ay u adeegsato dalka Ukraine waxaana dowladda wadanka Ukraine dhankooda ay sheegeen inay isdifaacayaan oo ciidamadooda aysan hubka dhigi doonin ilaa iyo markaasi ay ka guuleysanayaan sida ay tilmaameen ciidamada Ruushka ee sida gardarrada ah ugu soo duulay dalkooda dhanka kalena Ruushka ayaa dagaalyahano u dhashay dalka Syria geenaya magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine Moscow waxay askareynaysaa Suuriyaan xirfad u leh
ku dhex dagaalamida magaalooyinka si ay markaasi uga dagaalamaan Ukraine kadib markii ay ku adkaatay ciidamada Ruushka inay gudaha u galaan magaalooyinka. Warkan waxaa laga soo xigtay mas'uuliyiin u dhashay dalka Mareykanka. Xeelleerayaal Mareykan ah ayaa sheegay in Ruushka oo howlgallo ka sameynayay Syria tan iyo sanadii 2015 uu bilaabay inuu dagaalyahano ka qorto halkaasi, isaga oo doonaya in khibradooda ka dhex dagaalamida magaalooyinka uu uga faa'iideysto inuu gacanta ku dhigo magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine. Ma cadda inta dagaalyahan oo ay qorteen Ruushka, laakiin qaar ka mid ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha dalkaasi Ruushka, halkaasi oo lagu diyaarinayo si ay Ukraine ay u galaan, sida ay sheegeen saraakiishaasi. Saraakiisha ayaa diiday inay sheegaan wax intaasi dhaafsiisan oo ku saabsan daabulista dagaalyahanada u dhashay dalka Syria ee loo wado dagaalka ka soconaya dalka Ukraine. Waxaana dowladda waddanka Ruushka ay garab istaag xooggan ay u muujisay dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ee dalka Syria, taasi oo wadamada reer galbeedka ay ka soo horjeesteen markii duulaanka dalkaasi lagu qaadayay, iyadoona xilligan dowladda Ruushka ay tilmaamayso in askar badan oo u dhalatay dalka Syria kuwaasi oo xirfado kala duwan u leh inay ka dagaalamaan magaalooyinka ay xilligan ay geynayso dalka Ukraine kuwaasi oo u dhashay waddanka Syria. Waxaana ilaa haatan aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto xiisadda dalka Ukraine oo maalinba maalinta ka dambeysa sii adkaanaysa, iyadoona magaalooyin dhowr ah xilligan ay ku hareeraysan yihiin ciidamada dalka Ruushka. Waxaana la tilmaamayaa in khasaare fara badan uu gaaray shacabka dalkaasi. Maalinba maalinta ka dambeysa dadka ku dhaqan dalkaasi Ukraine ayaa isaga cararaya, iyadoona dalalka deriska la ahi ay gabaad ay ka dhiganayaan kuwaasi oo magangelyo kala duwan siinaya. Waxaana wadamada caalamka ay si isku mid ah ay u garab istaageen dowladda waddanka Ukraine, iyagoo tilmaamay in daandaansiga iyo weliba dulmiga Ruushka xilligan aan la aqbali karin. Dhinaca kalena, Ruushka ayaa diiday in uu ka qayb galo dhageysiga maxkamadda caalamiga ee ICJ. Ruushka ayaa diiday inuu ka qayb galo dhageysiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee loo soo gaabiyo ICJ, iyadoo ay Ukraine ku baaqayso in la joojiyo duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkeeda. Safiirka dowladda Russia u fadhiya magaalada Hague, Alexander Shulgin, ayaa muujiyay in dowladdiisu aanay dooneyn inay ka qayb gasho dacwadaha maxkamadda. Garsooraha maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay ka xun tahay in Ruushka uu diido marka la fiiriyo in uu markaasi ka soo muuqdo maxkamadda. Garsooraha ayaa sidoo kale Moscow waxa ay ku eedeysay in Ruushka uu si qaldan u adeegsanayo ereyga xasuuq maadaama uu Ukraine ku duulay, isagoo ku andacoonaya sheegashooyin been ahi in Ukraine ay xasuuqday dadka ku nool halka lagu magacaabo Donbass iyo weliba magaalooyin kale oo Ruushka xulafadiisa ay ka taliyaan. Ruushka iyo Ukraine labaduba waxa ay ka tirsan yihiin marka la fiiriyo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ICJ. Guud ahaan daawadayaal, waxaa intaasi kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. Tan iyo kulanti dambena waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.